balwoy waxay belayay mooyaanay beergaal iyo boyga looranisay waxaa i belayay balbalay laylay 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 lalalalaylay mun cawalay ku dheeraayay kii cabdisilimo iyo qadijabalwo labadii boqor ayaa niga waramaya cabdi deeqsi warfa ayaa magaciisa loo oran jiray cabdisilimo aniga cumar baa la cumar deeqsi warfa baa cabdisilimo walaalkay buu qalinka cabdi deeqsi qayr baxshiyo qadi jabalwa qayri tirayo caada u lahaa tin dheer buu lahaa cabdisilimo deeqsi markuu xalifaya tinkaasu soo qaban jiray timaamada xayga taanu jecele kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaal halkani waa telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono bilowgii balwada fanka iyo suugaanta casriga ah ee Soomaaliyeed barnaamijka waxa si wada jir ah idinku soo saaray isla mar ahaantaasina halkan idinkala wada socodsiin doona waa anigoo Ibraahim Cabdillaahi Ibraahim Suxufiya iyo saaxiibkay Axmed Diiriye Ciiltire laylay 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 lalalalaylay mun cawalay ku dheeraayay sida aynu inteena badan ba aragnay sanadihii ugu dambeeyay waxa si weyn soo ifbaxayay fanaaniin Soomaaliyeed iyo suugaan tiro badan oo iskugu jirta heeso gabayo iyo noocyada kale ee maasooyinka waxana warbaahinta baraha bulshada internetka si weyn u qarqiyay heesaha aan hakad kala lahayn iyo fanaaniinta faraha badan ee samankan sida weyn iskaga daba dhacay marka laga yimaado heesaha ku salaysan ciyaar dhaqameedka ay ka midka yihiin sayliciga daatada wiilwiilaha batarka iyo kuwo kale oo badan waxa la aaminsan yahay inaanay jirin heesaha casriga ah ee maanta sida xooggan loo dhagaysto ama loo daawado wixii ka horreeyay xilligii ay soo ifbaxday kooxdii Balwa Band oo ahayd kooxdii ugu horreysay ee bilowday heesaha noocani oo kale ah waxaana laga yaabaa in badan oo kamid ah boqolaalka fanaan ee Soomaaliyeed ee ka soo heesa daafaha caalamka ayna wali isweydiin sheekadan iyo halkii ay ka soo ifbaxday haddaba ma taqaanaa qofkii ugu horreeyey ee Soomaalida u heesa marka laga yimaado ciyaarahaasi dhaqanka waxse ma ka og tahay kooxdii ugu horreysay ee isku abaabusha qaab faneed ee la yimaada suugaanta casriga ah iyo weliba heesaha cusub ee waqti xaadirkan socda cabdi deeqsi warfa cabdisinimo wuxuu ahaa fanaan heesa hal abuur la xamiistay abwaan muusigyahan aad loogu aqoonsaday horumarinta fanka Soomaalida waqti ayna dadku aqoon badan u lahayn fanka iyo suugaanta Soomaalida cabdi deeqsi warfa oo loo yaqaanay cabdisilimo waxa uu ku dhashay tuulada Jaara Horato oo 25 mayl dhinaca bari ka xigta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal qiyaastii markii ay taariikhdu ahayd sanadkii 1920 sida ay noo sharaxayaan aqoon-yahan Bashiir Sheekh Cumar Good iyo abwaan Maxamuud Cabdillaahi Geestir cabdisilimo wuxuu ku dhashay Jaara Horato oo ah bariga Boorama cabdi deeqsi warfa ayaa magaciisa loo oran jiray cabdisilimo wuxuu dhashay magaranaysa bilowgii 20-nadii ama dhamaadkii magaranaysa intaan 20 beelahaas ku dhashay cabdi wuxuu ku dhashay tuulo kamid ah tuulooyinka Boorama oo intiisii hore yaraantiisii hore ku barbaaray
cabdisinimo waxaa la dhashay 18 caruur ah waxaana uu ahaa wiilka afaraad ee reerka ugu weyn cumar deeqsi warfaa waxa uu la dhashay cabdi deeqsi warfaa cabdisinimo waxa uu hadda ku nool yahay deegaanka qardhiile ee ka tirsan degmada Baki ee gobolka Awdal waxa uu isaguna inoo sharaxayaa halkii uu ku dhashay walaalkii cabdisinimo aniga cumar baa la ilaa cumar deeqsi warfaa baa cabdisinimo walaalkay waa isagu wuxuu ku dhashay deegaanka wuxuu ku dhashay Jaaraawr anigu deela bahmahayn isku bahmaanahay saddex bahood baan hayno bahbu ahaa qola kalena bahbay ahayd qaar kalena anigu aan ka mid ahay bahmaan bahda noogu weyn buu hayso haddaba magaalada Jaaraawrte ee uu ka dhawaajiyay Cumar Deeqsi Warfaa iyo welibana aqoon-yahanada kale ee barnaamijkeena la falanqeynaya maxaad ka taqaanaa magaalada Jaaraawrte waase magaalo caynkeeya waxaa arintaasi naga qabtiraya Suldaan Yuusuf Muuse Gasle oo ka tirsan cuqaasha deegaanka ay ku duugan tahay sooyaalka taariikheed ee berisamaadkii Jaaraawrte waa meesha Soomaaliland ugu da'weyn kolka la yiraahdo beer qodaal meesha koobaad ee beer la qodo ugu horeysay weeyaan halkan waxa kale oo waa meeshii Boorama ka guurtay iyadoo Saylac laga soo qaaday magaalo halkan la keenay Jaaraawrte Jaaraawrte la dijiyay sanaday tiilay waxa looga raray waxa la yiri meel ballaaran oo dadka u dhaxaysa hal la geeyo magaaladii hal la geeyo qolada galbeedka tiri dalandool bay nagu tahay way nagu dheertahay soo socodkeedu baabuurna ma jirin marka waa loo saan la geeyay halkaas soo seera ahayd oo banaanayd yaa la soo arko halka la geeyay meeshu waa meel taariikhda Soomaaliland meeshii iska wax u qabso degta iskuul ku dhisata waa meeshii koobaad ee Soomaaliland ugu horeysay weeyaan halkan qadiijo iyo dharaar qadiijo balwo waxay ahayd garabkii labaad ee sida fiican ay ugu duushay balwadu waxa iyaduna waqtiyo ku siman xiliyadaasi ay ku dhalatay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal qadiijo balwo waxay ku barbaartay isla magaalada Boorama waxaana ay ahayd gabadhii ugu horeysay ee taariikhda Soomaalida ka soo hor muuqata bilowgii fanka iyo suugaanta casriga ah qadiijo iyo dharaarna waxay ku dhalatay magaalada Boorama qadiijo iyo dharaar oo loo yaqaanay qadiijo balwo oo ahayd gabadha keli haatay ee ku jirtay kooxdii ugu horeysay ee balwa baan ayaa suugaan badan oo isugu jirta heeso iyo murtida kaleba ku lahayd fankii kooxdaasi marka khadiijo balwo lafteedu waxa sameysay balwada heesay qaar bay ku lahayd wax ereyday tiri waxa kamid ahaa wuxuu ingiriis ka xoogsaday iyo xajkii ma ka saaray xaaji haddaba ka hor inta aynaan gelin bilowgii balwada iyo aasaaskii suugaanta casriga ahayd ee Soomaalida waxay isweydiin leh shakhsi caynkeeya buu ahaa cabdisinimo waxay nooga jawaabaya su'aashaasi cimriga iyo caafimaadka Allah uu siyaadiyay shakhsiga kaliya ee hadda ka nool kooxdii balwabaan ama sakan balwabaan waa xildhibaan Sureex Madar Xoosh oo kamid ahay dhalinyaradii xilligaasi qayb libaax la ka qaadatay faafreebkii balwada waxaan ka aqaan abdi yaqsiba loon jiray shilmo waxa maamas baxay shakhsi ahaan qof nuuciib ah في المجال رجل تبغى ضروري جبت شيء تبغى من بعد كان ولا تبغى وضبط أبو سلطان أنا قريب نهين أنا حمال نهين أنا غجر نهين وهاني في عمها وفي المجال أبو cabdi deeqsi warfaa cabdisilimo qaybtii hore ee noloshiisa waxa uu ahaa shakhsi ku shaqaysta xirfadiisa dirawalnimo ilaa iyo xilligii mustacmaradii gumaystaha sida uu ka dhawaajinayo Cumar Deeqsi Warfaa oo isaga la dhashay isagoo aan soo gaaray nin weynaaday dirawala nin Talyaani oo shaqeeyo kambaniya Roosi loo oran jiray isla markaa in badan buu soo hayaaninka kursiinteedii wax badan buu ku lahaa sidoo kale cabdisinimo waxa uu dirawalka ahaa mid kamid ah baabuurtii ugu horeysay ee ay yeeshaan dadka raydka xilligii maamulka gumaysiga gaadhigaasina waxa la ahaan jiray nin lagu magacaabi jiray Xaaji Xirsi Cawaale oo kamid ahaa ganacsatadii waaweyneed ee waqtigaasi sida ay isku raacsan yihiin abwaan geestir iyo aqoon-yahan Bashiir Sheekh Cumar Good cabdisilimo wuxuu wadi jiray baabuurkii ugu horeeyay ee geeskan Afrika ka soo dega dirawal buu ahaa
gaadhigaasi marka laga reebo kuwa dawladihii gumaysigayna haystay dad shicibi baabuur iibsadaan haddii taariikhda la baaro ama kow ama labuu ka noqonayaa waxa baabuurkaa lahaa xaaji xirsi gaadhigaasuu dirawalka ahaa marka cabdisinimo wuxuu noqday dirawal wuxuu noqday nin oran jiray xaaji xirsi cawaale oo markaasi ahaa nimankii ugu taajirsanaa dhinacaasi waqooyiga ilaa iyo gobolka Ethiopia la yiraahdo kale naga haysto oo wagaasi reserve area inta noqon Soomaalidu lahayd oo wuxuu ninkaasi lahaan jiray kolonyo gawaariya oo magarasa markuu Talyaaniga waddanka soo degay wuxuu siin jiray contractkii askarta Talyaaniga isaga cuntada iyo raashinka iyo saliidda iyo wax walba isaga u keen jiray marka ninkaasi uu diray wallaha cabdisinimo dowlad bagaajinta halkan uu ka hadlay marka inuu hamdo marka baawur baa ka biya ka xumaan jiray marka baqaxarkiisa waxaasuu balwooy waxay bareeyay mooyaane buu odhan jiray balwoodan isaga kaga lahaa xilligaasi uu dirawalka ahaa cabdisilimo waxa uu ahaa shakhsi si weyn uga dheregsan heesaha iyo ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee ilaa iyo maanta ay Soomaalidu u arkaan hantida dhaqanka ah ee maguuraanka ah waxaa loo aqoonsaday aabbaha fanka Soomaaliyeed sababtoo ah waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyay ee sameeyay qaabka heesaha Soomaaligu maanta uu dhaco isagoo abuuray laxanka iyo habdhaca aasaaska u ah qaaciga iyo qaraamiga caan baxay ee suugaanta Soomaalida cabdi deeqsi warfaa cabdisilimo waxa uu heesaha iyo fanka bilaabay qiyaastii sanadkii 1940kii markaasi oo uu sameeyay heestii ugu horreysay ee balwada oo la aaminsan yahay inay ahaayeen heesihii ugu horreeyay ee fanka Soomaaliyeed ee casriga ah markaasi oo uu cabdisinimo baabuurkiisii ku jabay inta u dhaxaysa deegaanka la yiraahdo Jiri iyo Waraabood oo ku taala dacalka hoose ee banka Giriyaad waqtigaasi ayuu sameeyay erayada heestii ugu horreysay oo ku luqeeyay isagoo ka shaqeynayay baabuurkiisii xumaaday 1940kii cabdisilimo oo dirawala ayaa gaadhigii kaga xumaaday banka Giriyaad meesha la yiraahdo Jiri waa dhul bannaan waa kulayl geed la harsado male saylac buu ka soo baxay booramuu raran yahay halkaasay ka bilaabatay balwadu dabeeta cabdisinimo oo waxa soo dhanka dharagsan ayaa isagoo gaadhigiisii wata maalmaha kamida gaadhigii kaga jabay banka Giriyaad isagoo soo socda dhinacan buu banka Giriyaad kaga jabay jeclaa dabeeta Facebook meeshii kaga jabay ayaa gaadhigii soo dhaaftay midoo bab xiga waxa sanaga jabay wixii dal qalabkii ma hayaan markaas wax noo dhiba kale qaad bi qaar u dhiibaan qaar biyeysiiyaan qaar caanaysiya marka mid walba wuxuu ayay siiyaan sida halkii u fadhiyeen ayaa magaranayeen cabdisinimo ayuu markaasi tanig soo qaatay inankii dirawalkii kirishboogii la socday ninka kirishboogii la socday danaga siiyay oo nin weyn oo dhow 60 ayaa dadkan wareystay ku jiray moogtay danagii siiyay ayaa uu danagii garaacay iska garaacay ayuu yiri balwoy hoy balwoy waxa ibale yey boorama balwoy markaas oranaya waxa ibaleeyay boorguba boorguba marka waxa weey 1943 marka isagu music matmaya cabdisinimo waxa weey baasha ayuu tumaya markii daba inakii geed baa lika barayo geed baa u garaacaya kaas baydkii ugu horreeyay uu tiriyo ayaa wuxuu ahaa balwoy hoy waxay baleeyay mooyaan balwoy hoy waxay baleeyay baabuur balwoy hoy waxaanu baloobay beerguba balwoy waxay baleeyay mooyaane
waxaana ugu horrayntiiba sheekadu ay ka bilaabantay jacaylu cabdisilim oo u qabay gabadh reer saylac ahayd oo lagu magacaabi jiray indhacad markii ay ka soo burqadeen ereyadii ugu horreeyey ee uu ku heeso heestaasi waxaa la yidhaahdaa balwo waxayna noqotay magaca iyo bilowgii suugaanta cusub ee soomaalida iyo kooxdii ugu horraysay ee fannaaniin leh ee kooxda balwo baan balwoy balwoy waxay belayey mooyaanay beergaal iyo boyga looranisay waxaa i belayey balbalay laylay 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 lalalalaylay mun cawaley ku dheeraayay afartan maalmood ayay ku qaadatay safarkii boorame iyo saylac oo ugu badnaa berigaasi loo socon jiray 4 maalmood sababta keentay in safarkani uu qaato waqti intaa aan inaba caadi ahayn marka loo eego xilligaasi oo ahayd bilowgii heesaha balwada ayaa waxa mar kale inoo sharaxaya Bashiir Sheekh Cumar Good isagoo ku lifaaqaya asbaabihii kale ee soo wajahay waqtigaasi waxa u dhaxeen boorame iyo saylac 40 habeen waayo meel bay fadhiistaan oo ku tuntaan markaas meel ka fadhiistaan oo ku tuntaan 40 habeen ay u dhaxeen xaajigii baa loo sheegay ninkii uu bidayma booay war ninkii gaadhigi maxaa ku dhacay gaadhigi hebel caynka ninkaas deemo yaan inuu jabay baa la boodaya markii dambe wuxuu ogaaday sheekadii runta ahayd uu fadhishay meesha gaadhigu kaga jabay waxa la oran jiray waraabood dad garanaya jira laga yaabaa ka fadhiya waxay markay sii socdeen iga sheekeeyay waxa weeye 154 miles bay isku jiraan hargeysa iyo waxaan jiray boorbe iyo saylac waa 104 iyo konton mayl bay isku jiraan waxay saddex habeen waxay u hoydeen meesha la waraabood 12 habeen waxay u hoydeen caasha caddo 8 cisho waxay u hoydeen meel cross section oo gaarisa roads la yiraahdo habeen waxay u hoydeen laagta maroxda 4 cisho waxay u hoydeen meel la yiraahdo lagu magacaabo geedrawal walkii ku tiriyay bagarasa balwada ku dharatay saasay dhowr habeen waxay u hoydeen laba habeen waxay u hoydeen Cabdilqaadir tulada Cabdilqaadir saasay wixii dhan ku qaateen cabdi deeqsi warfaa cabdisilimo waxa uu ku caan baxay oo dadkii waqtigaasi joogay ay si fiican ugu yaqaaneen tin dheer oo ka mid ahayd timaha madaxiisa taasi oo aanu goyn jirin xataa marka uu xiiranayo timaha tintaasi oo la aaminsan yahay inuu gacantiisa ku hayn jiray mar kasta oo uu alifayo heesaha ama gabayada arrintaasi waxaa ka markhaati kacaya cumar deeqsi warfaa shoodhe cabdisilimo oo waayo u soo joogay mararka qaar uu walaalkii wax curinayo isagoo gacanta ku qabanaya tintiisii dheerayd markaa tin wuxuu lahaa walaalkii alla arxamo halkaa wuxuu ku lahaa tin dheer oo intaa leeg oon la xiirin sidaa buu soo dayn jiray markuu fikirayo wuxuu caado u lahaa tin dheer buu lahaa cabdisilimo deeqsi markuu xalifaya tinkaasu saa u qaban jiray cabdisilimo tin buu lahaan jiray aanu xataa marka la tagayo raislaha aanu goyn jiray uu qaban jiray marka tinkaasi inspiration buu ahaa oo ku gabto marada markuu hees tirinayo ayuu tiga qabsan jiray boogte uu ku hees jiray anna sidii baan dhabaanti ku helaano inta Cabdilaahi Qarshiba aan ogeyn timaha madaxa tinkaan u jeclahay ee aan hadba taabtada tahay timaha madaxayga tinkaan u jeclaa in hadba taabto baa tahay timaha madaxayga taan u jeclee ee aan hadba aan hadbata tobaatahay balwoy waxay belayey mooyaanay beergaal iyo boyga looranisay waxaa i belayey balbalay laylay 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 lalalalaylay mun cawaley ku dheeraayay